hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay hoggaanka caafimaadku isagoo ka duulaya waajibaadka saaran waxa uu fuliyaa ama uu siiyaa adeeg caafimaad ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo u marsiinaya structure-ka oo u dhisan yahay hoggaanka caafimaadku kaas oo ah command level dalkeenu sida aad la wada socotaan bari ilaa galbeed waxa uu qaybsan yahay gobol kasta waxay noo jooga command ama talis ciidan kasta markaa waxa uu leeyahay waax caafimaad waaxda caafimaad waxa ay fulisaa oo ay siisaa adeeg caafimaad ciidanka qaranka ee ka tirsan taliskaas marka waax caafimaad oo kasta ama talis kasta waxa uu leeyahay medical treatment facilities xarumaha caafimaad oo noqon kara hospitalo ama clinic hoggaanka caafimaadka waxa hoos yimaada laba hospitaal oo mid yahay hospitaalka guud ee Hargeysa ee ciidanka qaranka midna uu yahay hospitaalka ciidanka qaranka ee Burco waxa kale oo leeyahay ama hoos yimaada hoggaanka caafimaadka 10 clinic 10 clinic oo u kala qaybsan talisyada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah sanadkan mid kamid ah clinicyada waxaanu rajaynaynaa inaanu ka dhigno command hospital ama hospital inaanu ka dhigno hospitaalka ugu sokeeya ee frontka taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan runtii aad ugu amaanayo waxa hoggaanka caafimaadka oo kaashanaya taliyaha ciidanka qaranka waxa la ballaariyay hospitaalkii guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo lagu sameeyay dib u casriyeyn hospitaalka ciidanka waxa la dhisay waqtigii Ingiriiska ayaa la dhisay in yaroo dayactiro dambe lagu sameeyay mooyaane waa nidaam waa dhismihii ama designkii Ingiriiska waxa uu fulin jiray adeegyo gaar ah ma wada fulin jirin adeegga caafimaad ee looga baahan yahay hospitaal laakiin maadaama oo la ballaarinayo dib casriyeyn lagu sameeyo isla markaana lagu kordhinayo laba dhisme oo waaweyn waxaan rajaynayaa inuu noqdo referral hospital uu leeyahay ciidanka qaranku isla markaana caawin kara shacabka insha Allah biidhnillaahi alkariim oo daboola baahida caafimaadka ciidanka qaranka sanadkan wax qabad ahaan haddaan idiin sheego waxa hospitaalada ciidanka qaranka iyo clinicyadooda oo wada jira ama medical treatment facilities xarumaha caafimaadka ciidanka qaranka waxay daweeyeen 800 oo bukaana waxa hospitaalada la dhigay oo lagu daweeyay ama la admit gareeyay 400 oo bukaan waxa hospitaal dibadda loo diray ilaa 30 askari oo isugu jira saraakiil iyo askar caadi sida uu yahay waajibaadka hoggaanka caafimaadka ciidanka qaranku isagoo oo fulinaya adeegyada caafimaadka ee joogtada ahaa sidoo kale waxa uu bixiyaa ama uu mar walba hawlgal kasta oo ciidanka qaranku sameynayo uu raaciya ama uu diraa tiimam caafimaad marka deploying unitiska hawlgal caafimaad sameynaya ee ciidanka qaranka waxa mar walba loo diyaariyaa oo raaca caafimaadkii ku haboonaa ama tiimkii caafimaad ku haboonaa marka waxaynu halka ka fahmi karnaa in hawlgal kasta oo la sameeyay oo ama haatan lagu tala jiro ama hore loo sameeyay inuu tiimkii caafimaadkuna garab socdo oo mar walba ku xidhan heerka uu operation kaas leeyahay marka taasina waa mid kamid ah waxqabadyadii operationada ciidanka qaranku ee sanadkan uu fuliyay waxa kale oo ciidanka cusub ee hoggaanka caafimaadku mar walba ku jira waxa weeyaan ama waax component kamid ah medical readiness component ka la yiraahdo oo u diyaar mar walba hadii cudurro dilaacaan hadii hawlgal la gelayo ama dagaal la gelayo ama anything disaster kasta oo dalka dhaca waxa jira readiness hadii dawo tahay hadii ciidan tahay waa readiness bay ku jiraan marka medical readiness command kaasi waxa uu mar walba isticmaalaa hoggaanka caafimaadku hawlwadeen kasta oo caafimaad oo ka tirsan hoggaanka caafimaadku wuxuu uu qabtaa laba shaqo shaqada koowaad waxa weeyaan inuu fuliyo shaqadii joogtada ahayd ciidanka qaranka oo ah inuu hawl adeegii caafimaad siiyo inuu wacyigelintiisa iyo mar walba isagoo oo markaa ka fulinaya commandka uu ka tirsan yahay
iyo in sidoo kale loo isticmaali karo operation kasta ama deploying units kasta labadaba shaqadaaba uu qaban karo oo meel kasta tegi karo oo hawlgal laga fulinayo taana alxamdulillah waanu qabanaa waanu horena waanu sameyn dhinaca marka aanu u nimaadno tababarka iyo cilmi baarista hoggaanka caafimaadka waxa ugu maqan tababar caafimaad 12 arday 12 arday waxay kala yihiin dhakhtar cudurrada guud hal dhakhtar ayaa u maqan dhakhtarka qalliinka degdega hal dhakhtar ayaa u maqan health officer sarkaal caafimaad waxa u maqan 2 psychiatry nurse waxa u maqan hal arday anesthesia nurse ama nurse suuxdinta ku takhasustay 2 ayaa u maqan clinical nurse 3 medical labna waxay ku maqan yihiin dalalka dibadda sida Ethiopia sanadkan waxaanu fulinaynaa mid ka mid ah cilmi baaris iyada aanu waaxda tababarka iyo cilmi baarista ay fulinayso oo ah prevalence of hepatitis B among soldiers in the front line oo runtii aad dalka imika ugu soo kordhaya cudurka hepatitis B-ga waxa kale oo hoggaanka caafimaadku qabtay medical camp waxa la yiraahdo ama olole caafimaad sanadkan waxa noo soo galay 3 olole caafimaad kii koowaad waxaanu fulinay January kaasoo ay fuliyeen dhakhaatiir specialist ah oo aan runtii ka soo martay qaadnay ama ka keenay dalka India iyo Imaaraadka dhakhaatiirtaasi waxay fuliyeen qaliino aad u culus oo aan dalkeena waxba laga qaban karin waxa kamid ah qaliinadaasi qaliinada lafaha qaliinada caloosha iyo ENT alxamdulillah dadkii qaliinka lagu sameeyo aad u badnaa maanta alxamdulillah way caafimaad qabaan aad baan u wanaagsan medical camp to ama ololaha caafimaad ugu labaad waxaanu sameynay August 2019 ama 2019 waxaanu ka fulnay tukaraq kii saddexaadna imika wax ka socda UP xagga xiriirka dibadda markaan eegno marka laga yimaado wadanka Ethiopia wadan aynu saaxiibo dhownahay oo runtii tababarka iyo xagga dirista caafimaadkaba aad aynu xiriir wanaagsan leenahay waxaynu sanadkan heshiis dhinaca caafimaadka hoggaanku la seexday isagoo kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wadanka aynu jaarkanahay Djibouti kaas oo aan rajaynayo inay wax badan oo wanaagsan aynu isdhaafsan doono oo ay ka mid yihiin in bukaanka halkan waxba loogu qaban kari waayo aynu u diri karno isla markaana runtii aynu ka helnay qalab caafimaad iyo dawaba dhinaca qalabaynta haddaan eegno xarumaha caafimaadka ciidanka qaranka sanadkan waxa aynu helnay oo aynu iibsanay 2 mishiin oo ah kuwa anesthesiyada oo runtii aan ugu talagalnay in marka la dhiso isbitaalka referalka guud ee ciidanka qaranka in aan ku qalabayn horena waxaanu haysanay oo sanadadii hore aynu iibsanay mishiino waaweyn oo ay ka mid yihiin x-ray ultrasound oo waxaan haysanay qalabkii shaybaarka waxaan haysanay anesthesia machine-ka taybuladii qalliinka lambiski qalab aad u fara badan oo lagu qalabayn doono insha Allah sanadkan bishan October dhowr iyo 20 waxaan rajaynayaa inuu soo gaaro container qalab caafimaad oo insha Allah aan ku qalabayn doono isbitaalka marka la dhiso iyo kii hore u jirayba hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku hooray ciidankaas aad ogtihiin waxaan bilownay ka wasaarad ahaan iyo ka talis ahaan iyo ka madaxweyne ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi in caafimaadkooda la tayeeyo oo la ilaaliyo iyadoo aan bilownay inaan u dhisno isbitaal cusub oo ka dhisano qaybta 17aad Barjeex isbitaal cusub oo ka baxaya cashuurta dalka Soomaaliland iyo mid kale oo imika insha Allah aan rajaynayno haddii Ilaahay yiraahdo inay nagu caawiso dawladda UK insha Allah isaguna bilaab doona mar dhow waxa weeyaan waxaan kaloon sameynaa oo nagu jira miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga inaanu askari kasta aanu indhihiisa ilaalino oo aan ku xidhno dhakhtarka manhal kii soo jajabaan geyno waxa weeyaan daryeel gooni aan siinaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyadoo ay leeyihiin hoggaan ku tababaran aqoontoodii u leh xirfadoodii u leh kana soo baxay jaamacadaha ciidamada qaybta kulliyadda caafimaadka raga aqoonta la jooga oo xirfad leh waxa weeyaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska iyo madaxweynahaba waxa weeyaan si waxaan u ilaalinaa hufan oo aan u ilaalinaa ciidamada kala duwan
khaasatan ciidan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku horay